السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan doonaa xalay qaan Tailwind CSS Components haddii aad soo booqato tailwindcss.com waxaa magaca ku dhufanaysaa qaybta ku qoran get started kadib haddii aad ku dhufato qaybta componentska waxaad helaysaa markaa designs diyaarsan oo ah qaybaha kala duwan ee website-ska soo haddii kale aad ku dhufana qaybta hero session-ka waxaa helaynaa markaa design diyaarsan oo qaybta u horeysa website-ka noqonaysa soo designada inta badan yani waa free qaarkoodna yani waa lacag dabcan soo marka qaybta doonaysid ayaad isticmaal karaysaa tusaale kale haddii rabto kan u hore inaad isticmaasho waxaad ku dhufanaysaa qaybta koodka keliya kadib koodka ayaad markaas si fudud u arkaysaa soo haddii aad doonaysid koodka inaad hesho copy ayaad dhehaysaa haddii aad isticmaalaysa html react iyo sidoo kale view tusaale kale html aad isticmaalaysaa oo dooranaysaa kadib aad copyaysanaysaa soo haddii ay imaado qayb markaas html file kadib paste ayaad ku dhehnaa intaa waa inaad soo gelisaa cdn linki oo markaa Tailwind CSS-ka soo marka waxaan sameynaynaa inaan component kale aan soo qaadno tusaale kale haddii website hadda aan fiirino waxaa markaasi soo galay qaybta ugu horeysa soo hadda waa kan website-ka ee soo furay html code-ka ahaa soo marka qaybta waxaad ku qoranaysaa qoraalka aad doonaysid sidoo kale qaybtan qoraalka aad doonaysid ayaad ku qoranaysaa soo sidaas fudud ayaa markaas isku diyaarisay qaybta ugu horeysa haddii aad doonaysid qayb markaa features oo product-yaada ama yani waxyaalaha qabata aad soo muujinayso kale iyadana markaasi waa isticmaali kartaa tusaale kale hadda kanoo kale waa very important kanoo kale isticmaali karnaa grid layout-kiisa aad markaasi aad u isticmaali kartaa tusaale kale haddii aad koobiyeeyo intaas soo gelinaya isna koodka qaybta u dambeysa keeni doona haddana waxaa dhihi doonaa Ctrl V kadib haddii aan fiirino waxaa arkaynaa markaasi stylekaas in markaa loo soo geliyo isoo kale qoraalada dabcan tusaale kale haddii aad u baahan tahay inaad soo geliso pricing section isoo kale header section hadda tusaale kale waxaa soo gelinaya qaybta pricing oo kale waxaa dhihi doonaa pricing isoo koobiyey kadib halkaan ay imaan doonaa kadib paste ay ku dhihi doonaa هذا already waxaa weeyaan website waxaa u sameynay ilaa 3 qayb anigoo wax kooda markaasi diyaarin ama wax style sameynin soo jeedaan waxaa weeyaan style si fiican ay u sameysan yahay hadhow markaa kalrada iyo wax walba oo doonaysid ay markaa ka bedelaysaa haddii aad fiiriso qaybta markaa responsive-ka waa very responsive oo markaa full responsive waaye soo jeedaan yani uma baahnid inaad responsive aad ka dhigto yani si responsive oo u shaqeynaya marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaad ka faa'iideen وحلي خانة Tailwind CSS Components أصحاب تاو شرجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.